ما حق وملا حق ملا تاساوى فرنجلنا إني أمسهم حردة أي جلان أما سفارة أي جلان أما محوها هاي ملكة أي دجان أما أي عيد إيجي واردينا يسووتان أنا وحن وأقل مجنجليو هذا أحمد وعاوح ومجنجلي ويديستي لمكي باش اللي حل هاي محوها سفير رضاها أيو هوست وجرا ومجنجلي ويديست وافرجلين ديارة حرنمو وجسود دقي ما أنت عاو حرمة حلنا وكجرا دقدقاق وانك اللي جرب بدلك تلاذيس أو كدمنا المحوها مجنجلي سياسات ويديست أحمد وح رغماي معها وح مسؤولية لو تلمام مكرو المحوها هاي إبال نن مجنجلي سياسات ويديستي إنه مدحوين فرماجي أو يراهدو المحوها هاي تلاقي قال دحيس صحبه ما مجنجلي سياسات ويديست خلاص حق الله أنا هجي أنا دلكودي ديارتها صارتانو إيجا اختيار لكن أحمد هذا وحو مجنجلي سياسات ويديست راح حلنا وحلو يقنا ميل أمسهم يباش شناد يباش لحد أي جونو هل أرينا فهمه أحمد مدوبي مقولشوا إيمان جري شر وكل غيب جري جري هذا ما حكوا كل في إنه حلنا أمسهم مجنجلي ويديست أسجع اللي ويدينا إن قلنا انترفيو كقاعد دون باش لحد أيا أنا ربنا إنه وحش وشاقي أي صوبان ديجان واللي يدلا وامغل إنه واللي يدلا واللي يسمينا لكن بوفيس بين وحش شركة دحمرية مدوجة مارتي شركة دحمرية مدحضة معمول قبل هذا يدولد الدحاء أو قبل كبنادل وتشوجو شركة سي مدحتوية حدي وسنكدعي كرن وعبسي حد حلنا وتشوجان مدحضة معمول قبل هذا غاركود ما أمسهم أيها مدحتوية ذا كنيسة مسحنا له شركة هذا الفير شن بقول ضد كله أو جوفرنر كي جوفر كان دقي مقالة وكمديها أي سود ويس مركي سود وين كدي بوحوك الدور بدي إنه حلنا محوها هاي مجنجلي سياسة ويديستو إن محوها جيمس سوون جروب كاس وهوسقل لكن عندما يسقوا تيا كسر مري أو وحصل سقي مع العيد ذي عاو حي مجنجلي أي ويدستان محوها جروب حلنا مكون مقتامين جسوا إن لسيك آمن بحيو أو حلقة هذا الدولة مدحين فرماجو أي مرة يسوا إن دك أشيء يسوس الدولة سامين لاين مالك لا من بحايو وحماشي يمد لمكو حراء باش عالم كيو جاجوسين دولة الصومالي رجالين هاي هذا ينبنانك الصور دجال مركي حلنا قلين وإيجو كعرضاي ضدكي الصوماليات أي مسؤولية وهايين إيجو كعرضاي مركي ماشى قلين أي بنانك الصور دجال هل وي أمبافر إني باش عالم كنا مكاس سيدا مجنجلي ويدستين وانا قنا مجنجلي سي ويدستين أي قاتان أو ودمدو ذا الإعلان إن محوها أي دولة الصومالي كسو ريجيان إن مدحوينها فدرال كقوان أو قاتو أو نمكاس لو سو حري wax ka dhaxeeya mala caawa inuu cadahay Soomaaliya xilbaane in madaxdii maamul goboleedyada midowga musharaxiinta iyo cid walba oo aan ku aragtay in madaxweyne farmaajo in magaalada Muqdisho cabsi ku joogayso ma cabsi kuma joogaan guryahooda ay degiin midowga musharaxiinta aad sheegayso ana horiyaan kugu sheegay horta xilligan hadda musharax si dhaba muxuu shuruudii u buuxiyo oo la og yahay ma jiro laakiin haddii aad ka wada madaxweyneyaalkeenii hore iyo muxuu ahay dadka rabo inay is sharaxaan rabo waaya dadka rabo inay is sharaxaan haddii ugu jeedo guryahooda ay nabad ku joogaan waa dad walaala waa dad inputkooda dhageysto waa dad muxuu ahay habeen horedan tan shirka keeli ka dhacay joogi waa dad mas'uuliyiin waa dad la qadariyo sharaf dalkan ku leh laakiin waxa aan sharaf maanta aan dalkan ku leeyahay waa dadka amsom usu dhiibiyo iyo bahalka muxuu ahay James Swan iyo Mamoto usu dhiibi waay dadka muxuu ahay wasaaraha oo dhowr jeer kulan la qaatay midowga musharaxiinta qaarkood waxay ku eedeeyeen in talada aysan ka go'in wax aragtiyana uusan lahayn marka laga reebo isku imaatinka uu sameeyay mooyee siyaasiyiintu warkooda waa la dhageysanayaa ninka aan magangeli siyaasadeed weydiisanin ninkii magangeli siyaasadeed weydiisto dalkayna wax haweeraatee talo oo ku leeyahay mala waa iga dhab hadalkaas madaxweynaha federaalka ee hadalkaas aan dowsa qaadanin
oo aan leeyahay hadduusan qaadan dalkan meel ka hadda ka horaan waxaan ku yidhi axmed madoobe haddii hadda aad maanta xirin maanta meel ka fogaad ka dooni doontaa hadda ka horaan u sheegay haddana hadda waan ku celinayaa axmed madoobe haddii uu isdhiibay oo magangeli siyaasadeed u weydiistay dalka as weydiistay hala sheego hana laga saaro dalka ama ha nagu soo wareejiyaan waa muwaadin soomaaliyeed oo amar diidda ka sameeyey dowladdii federaalka amar diidda ka sameeyey hal shay aan kuu sheega dowladda etoobiya oon dariska nahay meeqa governor oo la xiray dowlad goboleedyadooda madaxweyneyaalkooda imisaa la xiray oo amar diidda samaysa hadda ugu dambaysa fiiri ceeb ma aha in qofka muxuu ahay amar diidda ka sameeya dowladda in dembi lagu soo eego xeer ilaalinta maxaa loo sameeyey wax walba waxaa weeye qofka legalka sharciga diida waa la qabtaa waa la xiraa haddadan tan maxaa ugu dambeeyey qolada la yiraahdo maxaa ahayd iga sheeg TPLF maxaa lagu galaya xildhibaan waxaan rabaa inaan ogaano maxay ku kala duwan yihiin madaxweynaha hirshabeelle koonfur galbeed iyo kan jubbaland madaxweynaha hirshabeelle nin sharciga u hoggaansamo dowladda federaalka asaga tala wadaag ay yihiin oo wax walba ay muxuu ahay qodobkiisa rabana diidi karo qodobkii rabana ogolaan kara waa ninkan beesha caalamka uu isu dhiibay ee safaaradihii hoos garguuranayo oo ammaankaygiyaa xumaado leh waa lii sumaynaa taagan ee dalkii oo dhan ka aamin baxsan sidee dowlad iyo lahaan karaa aan usoo laabano shir xal laga gaaro axmed madoobe aan ku fogaan shir xal laga gaaro haddii ay kuu muuqato in meelaha qaar aada loo kala fogaaday oo madaxda maamul goboleedyada qaarna dowladda ay la safan yihiin qaarna ay kasoo horjeedaan arrinta doorashooyinkana ay marba mar ka dambaysa dib usii dhacayso aaway doorkii looga baahnay golaha shacabka waad mahadsan tahay horta marka ugu horeysa adig ma ku qanacsan tahay in axmed madoobe caaw magangeli aas weydiistay beesha caalamka ma ku qanacsanta axmed madoobe arrintaa noo dambayso yaanu kusoo laabanin waa ka hadal baarlamaanka doorkiisa wuu qaadanaya baarlamaanka doorkiisa wuu qaadanayaa waxaan warka sugaynaa xukuumaddii iyo muxuu ahaay madaxweynayaashii dowlad goboleedyada kale arrintan waa socodsiin karnaa iyo ma socodsiin karno dalkan doorashaan rabnaa ina saada annaga doorasho waa geyn karnaa iyo doorasho ma geyn karno labadaas un baan sugaynaa sababto ma rabno in baarlamaanka asaana hor cararayo la yihahdo waayo waxa la dooranayo waa baarlamaan waxa la dooranayo baarlamaanka waay marka rabno marka in loo arko muxuu ahaay in annaga waddo aan sallaxanayn in noola arka ma rabno xaqiiqada dhabta waxaa weeye haddii ay dhinac ay ujiidi waayaan hay-addii waddankan aabbaha iyo hooyada u aheyd ayaa jirta iyadee lagu soo celinaya kaalinta uu qaadan karo baarlamaan kala jaban ma kala jabna baarlamaan wuu kala jaban yahay sababtoo ah aqalka sare guddoonkiisii iyo golaha shacabka guddoonkiisii ayaa mucaarad iyo muxaafid kala noqday xildhibaan si cadan wax u sheegay aan ku soo waxyar haye aqalka sare haddii la yiraahdo waa lagu heshiin waayo wixii dowlad goboleedyadii iyo hay-adii fulinta waa kusoo heshiin waysaa xilligii doorashada qabtan hadii la yiraahdo cabdi xaansha berri asaa u yeeraya baarlamaanka waxaan ka rabaa barkee baarlamaanka laga rabaa go-aan kulankan waa kulankii afraad amba shanaad waaye haddii kan inkastoo kheyr wax walba laga rajeeyo ay isku fahmi waayaan farmaajo dani iyo axmed madoobe maxaa u danay dani iyo axmed madoobe aniga waxaan qabaa talo laga sugaayay ma laha waa dhammaatay taladii laga sugaayay waxaa soo afjaray axmed madoobe markii magangeli siyaasadeed oo weydiistay nimankii safiiradii xaalan deganay safaaradda isku jiray iyo cidda oo magangelida siisay haddii kulanka ugu dambeeya isku fahmi waayaan saddexda iminkas hayso maxaa xala maba umalayn hadda go-aanba male ja firi waxa kaliya ee loo waday oo inas u yimaada ay ahayd in saxiix ay sameeyaan marba hadduu qaxootinimo iyo magangeli siyaasadeed oo weydiistay waxaa weeye beesha caalamka inay qaataan dalkooda geystaan iyo inay dalkayna kusoo wareejiyaan wax ka dhexeeya oo laga sugaayo male xildhibaan su-aasha ugu dambeysa kugu soo celinaya waxay tahay adigoo axmedow ka dhex arkin adoo ka dhex arkin waxaan rabaa dhowr mar ay shirinayaan ku yidhi haddii markaan shirkan ay go-aan cad amba wax keeni waayaan baarlamaanku doorka u qaadan karaa baarlamaanka doorka u fulan waxaa weeye haddii madaxweynihii dowladda federaalka ra-iisul wasaarihii ay yidhaahdaan annagu doorashadii taagtaagaanaa galay baarlamaan go-aanka soo gaar markay baarlamaanka wax allaale wixii sharuuc ahay waa u ansixinay iyagaa xaggooda amarin haddii xaggayna ay u soo celiyaan go-aanaan gaarayna
markii ugu dambeeyay waxaan ugu eedeynayay mar walba go'aanka madaxweynaha idinkeena iska qaadataan doorasho qof iyo cod waad qaadateen madaxweynuhu wuxuu yiri waa la soo diiday idinku soo celiyay doorasho dadban waa qaadateen heshiiskii September waad qaadateen haddana haddii madaxweynuhu uu qorshe kale idinkeena ma qaadanaysaan oo maxaa fiiri annaga mar walba doorasho ma aho waxa ka aad ka hadlay sharciga doorashada aan saxilnay ayaga bedelay oo dhahay waa nagu dhib annaga ma rabna marka inaan taag noqono oo sidoo ay iyaga hadda isku hayaan sheegay Axmed Madoobe farmaajo sharciga uu sheegay inuu dani gacantiisa uu ku qoray waan ila kale waa ogolaateen isna socon waay waa ogolaan sababta aan u ogolaanay waxa weeye inaan wax walba u fududeyn oo aan noolo arag inaan annaga danaysanayn annaga dadka la dooranayo horta saas ma ogtay idig dadka la dooranayo waa baarlamaanka ma aha madaxweyne waxa la dooranayo waa baarlamaanka cidda maanta la dhihi karto saamilayda siyaasadda waa dadka musharaxiinta baarlamaanka oo qabsiga beelaha ku yimid waa qaybsiga beelaha ku yimid hadda meel fiican iska lahaynaa haddii idinku aad mar walba ku biraysan tihiin go'aanka madaxweynaha uu idin keeno haddana maxaad ka qabtaan haddii ay wada shiraan oo go'aan la gaaro haddii madaxweynuhu uu ogolaado in hore loo socdo madaxweynaha nooma keenin heshiiskii iyaga ay wada gaareen oo saxiixooda shanta madaxweyne iyo gudoomiyaha gobolka iyo madaxweynaha ay wada saxiixeen ayaa noola keen waa ogolaateen meesha kaliya wax noogala keena annaga ma aha dawlad goboleede waxa waaye through ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha xafiiskooda ee warqadaha nooga yimaadeen meeshay nooga imaadeen warqada ay soo wada saxiixeen oo dan saxiixiis ku yaalo Axmedo saxiixiis ku yaalo oo madaxweynaha Hirshabeelle uu ku yaalo oo kan galmudug uu ku yaalo oo gobolka Banaadir uu ku yaalo dadkaas oo dhan saxiixoodii warqada ahaan noola keenay waxaan ka toosin karnaa ka toosinay waxaan ku darnay aan ku dari karnaa ku darnay waana u ansixinay qodobka dhahayo baarlamaan bedelaha la dooranayo annaga ku darnay hay'adda fulinta bedeleed markay timaado xilka ka tagay annaga ku darnay waa qodobka saddexaad farqadiisa labaad iyo farqadiisa koowaad ee kala dhigay marka annagu intaasna waxaan u yeelayn inaan vacuum imaadin oo banaanaasho ayna imaadin mar walba lama ogolo in meeshaas banaanaasho ay timaado firaaq siyaasadeed ay timaado waa tahay ugu dambeyntii xildhibaane waqtiga ayaa iga dhacaya ugu dambeyntii taladaada xildhibaannimo ee ku aadan in la isku soo dhawaan karo go'aan la gaari karo maxay noqonaysaa taladayda waa iska caddahay nimankan magangelida ay weydiistay horta ha ka soo baxaano dalkooda ha aaminaano madaxdooda ha aaminaano hay-adda ay tirsiina fulintii iyaga ha is aaminaano baarlamaankoodii iyaga ay soo doorteen ayaa joogay ha aaminaano waa lii dilay indhaha carliga shubay waa lii sumaynaa ka baxaan wax sumaynaa mala haddii lagu sumaynayo laguma soo dhaweysan 500 kuma soo dhaweyseen iyo governorkeeda waa nasiib darra meesha aad leedahay waa liigu sumaynaa governorkeeda yaa maanta ku soo dhaweey marka magangeli siyaasadeedana ka jeclaatay inaad ka weydiisato koow horta marka ugu horeyso banaanka u soo bax Soomaali noqo marka walaalihii kale ee sugayay nimankan ee governorada madaxweyneyaalkii kale على جولا وقرقور لفت جرين يرئيس وزاره يقدميه قبل ومهسين هشيسك بيدبل وسوق على صحيحة هذه ديدان إنه كان برلمان قانك جاري اللي من داير أمين جسو هذا ما سنتهي بريمير وولت وابليكيشن عصوب أو كوكان بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كمدا waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud